anigu ninkaa dhakhtarkii weynaa baan ugu tegey kiyoo la saarayo gaadhigan yaree meydka lagu qaado dabadeedna sakaraad buu aad u ahaa aad halkaa dhagkana mid baa kaga tiil madaxana mid waa lala cararayo iska jiin baa ku xidhnayd wallaahi sakaraad buu ahaa markay xabaddu way dhacday markay xabaddu dhacday waan soo yaacnay gurigoodii oo lagu buuqsiyay maanimi markaan nimi inankii yaraan ku wada kulanay dee afriir bay nagu noqotay xabaddii way dhacday inankii yaraa jaarkiina sikriye ku dhacday bana lagu yiri waanu garan weyna waanu yaabno waanu isku wada nimi waanu eegnow markaa waxaan baan anigu ku kulmay ilmihii xabadii ku taalo oo meeshii reeda dhiigii leedahay dibadna waanu garan dadkuna ay leeyihiin xabad baa ku dhacday kulan waxaan wanaagsan khiyaaray ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka wararkaan idin haynaan waxa kamid ah ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada Soomaaliland oo laba nin ku toogtay gudaha magaalada Hargeysa dhinaca kale wiilka uu dhalay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Muuse Biixi Cabdi ciidamo uu hogaaminaya ayaa wiil kale oo dhalinyaro ah ku toogtay isla gudaha magaalada Hargeysa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaa laga helay wiil dhalinyaro oo ehelkiisa ay baadi goobayeen labadii maalmood ee u dambeeyay balse la sheegay in ciidamada booliska Soomaaliland ku soo dhaxtuureen isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kadibna ay halkaasi kaga tageen waxaana ilaa iyo hadda la garan laayay cidda wiilkaasi dishay iyo sababta ka dambaysa magaalada Gabileyna waxaa lagu xidhay gudoomiyihii wacyigelinta iyo abaabulka ee xisbiga wadani isagoo la sheegay inuu ka falceliyay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi habeen hore ka soo yeedhay dhinaca Soomaaliyana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa ayaa si weyn uga hadlay xaaladda murugsan ee ka taagan Soomaaliland iyagoo sheegay inay ka go'an tahay inay miiska wada hadalka iskugu keenaan mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse ayaa sheegay inay doonayaan in Soomaaliland xaaladeeda si nabadgelyo lagu soo dabaalo warbixina muraasi ku saabsan ayaan idin haynaa oo idinku soo gudbin doona halkeenan dawladda Kenya waxaa taagan xaalad xasaasi ah kadib markii la sheegay in howlwadeena kamid ahaa guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya lagu afduubay gudaha magaalada Nairobi iyo gobolada kale ee dalka Kenya gudoomiyaha guud ee guddiga doorashooyinka Kenya ayaana sheegay in gudoomiyihii waaxda guddiga doorashooyinka ee xaafadda Embakasi ee magaalada Nairobi halkaasi lagu afduubay jaan iyo cirib meel uu dhigayna aan ilaa iyo hadda la haynin madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Samoei Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Amolo Odinga ayaana si weyn isku haya natiijada doorashada ee dalka Kenya waxaana laga cabsi qabaa inay qalalaasa ka dhalato kadib markay soo baxeen in xubno kamid ah howlwadeenada guddiga doorashooyinka la afduubay magaalada Jigjiga madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa xilkii ka qaaday taliyihii iyo ku-xigeenkii ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii ay ku fashilmeen hanaanka xasilinta iyo amni ku soo dabaalida xuduudaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo gudaha deegaankaba dhinaca kalena shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu ku fashilmay inta ciidamada iyo ka hortagga cadawga kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa liyu booliska ay laayeen ciidamada liyu booliska ee canfarta kuwa kalena ay halkaasi ku afduubeen sidoo kalena shacab magaaladaasi ku sugnaa ay soo barakiciyeen dagaal maalmihii u dambeeyay aagaasi ka socday sidoo kale xuduudaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inay ku jiraan khatar aad u xooggan kadib markii ururka argagixisada al-shabaab ay weerar kala duwan ku soo qaadeen xuduudaha dowlad deegaanka uu la wadaaga dhinaca Soomaaliya shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo wajahday xaalad cabsi oo aad u xoogan waxaana la sheegayaa in masaajidda waaweyn ee ku yaala magaalooyinka Jigjiga Goday Qabridahar iyo Dhagaxbuur aan la gali karin shacabkana lagu baadhayo qofka inta uusan galin ka hor waxaana soo kala dhexgalay shaki aad u xoogan bulshada ku nool dowlad deegaanka Soomaalida haddaba arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida dhinaca Soomaaliland iyo Kenya waxaan wax ka weydiiyay saaxiibkay Wacane oo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanka Soomaalida Soomaaliland iyo dhinaca doorashada dalka Kenya waxaana soo dhawow aad iyo aad ba mahadsantahay وعنا وحال شيء هي إن مجال هرجيس عاوي كدعين دلال قرشيسن يتوجش اللو جيسن هي دتك شعب كه وحنا الشيء هي عيدا وهو جامنها يويل كمدحوينها أحمد موسى بيحي عبدي إن أوتوكتي لبنن أو لهيبة عبد الرحمن عره جامية حزب جودني إيو فيصل علي ورابعنا عكلنا ويل يرى ولا يرى أو زكريا لقوم مجعبة إسلام مجال هرجيسة يكتوكتين سيدا كلنا وحال الشيء هي إن ويل ميدا لقصة نحساري متكم ذا إسبتال waaweyn ee magaalada Hargeysa bal maxaa u dambeeyay xaaladda magaalada Hargeysa oo la sheegayo inay ka jiraan kacdoon aad u xooggan
aad iyo aad ba mahadsan tahay tan iyo intii ay bilowdeen nidaamkan la xidhiidha in muddo kororsi ay wadaan maamulka Somaliland waxa isa soo tarayay walaaca laga qabo in ay dhici karaan waxyaabaha haatan ka socda gudaha Somaliland oo ay ugu horeyso in la beegsanayo isla markaana la tooganayo dhalinyarada da'yarta iyo waliba dadka ka afkaarta duwan maamulka Somaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi waxa la arkayay in ciidamadu ay hanjabaado kala duwan ay soo diriyeen taasi oo u muuqatay inay ciidamadu diyaar u yihiin ama ay u haleelayaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha Somaliland waxa sidoo kale to ayadana isa soo tareysay in labadii sano 3 sano u dambeysayba xabsi iyo waliba tacaddi uu ka socday gudaha Somaliland taasi oo ayadana horseed ama hordhac u ahayd tilaabooyinka ay qaadi doonaan maamulkaasi arintii shalay dhacday waxaa soo baxday in ciidamadu ay si taxadar la'aan ah ay ku xakameeyeen mudaharaadyada halkaasi ka socday oo ilaa iyo xilligan meydadka iyo waliba dad dhalinyaro ay afduubeen haatan laga helayo gudaha magaalada Hargeysa taasi oo lagu soo tuurayo meydadkii ay shalayta dileen dhanka kale to waxa iyadana isa soo tarayso in dhaawacyadii shalayto ciidamadu ay geysteen in ay haatan dad badan ay u geeriyoodeen taasi oo u muuqatay xataa ciidamadu ayagoo xakameyn karo kana hortegi kara in ay joojiyaan mudaharaadyada ayaa haddana xabadda nool u adeegsadeen dadka halkaasi ku soo baxayay taasi oo haatan ay ka hadleen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaaraha iyo waliba xukuumadda Somaliland xildhibaanada ku matala dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba wasiirada oo ayagu siyaabo kala duwan u hadlay halka mucaaradku ay berito diyaarinayaan inay ku dhawaaqi doonaan dowlad ku meel gaar ah taasi oo gabi ahaanba meesha ka saarayso wada shaqayntii iyo waliba wada hadalladii u socday ayaga iyo maamulka Somaliland arintan waxay u muuqataa gabi ahaanba in ay noqonayso meesha ugu dambeysay biyo kama dhibcaanka ah in madaxweyne Muuse Biixi uu xilka iska casilo sifo dadka Somaliland iyo ummadda Somaliland ee 32 sano lagu maaweelinayay inay noqonayaan dowlad madax bannaan ay haatan gabi ahaanba ay dadku ku kala jabayaan arintaasi waxaana sidaad sheegtayba waxaa jirta xaalad aad u qallafsan oo ka taagan gudaha Somaliland kadib khilaafkii dhexmaray madaxtooyada iyo xisbiyada mucaaradka ee Somaliland marka laga yimaado waxa arintaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Maareeye oo sheegay in ay doonayaan in ay wada hadalsiiyaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Somaliland bal maxaa arintaasi warbixin nooga haysaa arintaasi haday dhacayso oo dowladda iyo mucaaradka la wada hadalsiin karo oo dowladda federaalka Soomaaliya arintaasi ay kala dhaxgali karto waxaan ognahay in waxyaabo badan hore u hagaagi lahaayeen oo maamulka laftirkiisa hadal lagu qancin lahaa oo gooni istaagan iyo waliba waxyaabahan haatan ummadda lagu lagu madadaalinayo ayaa gabi ahaanba soo gabagaboobi lahaa oo maamulku waxay hoos imaan lahayn dowladda federaalka Soomaaliya laakiin gabi ahaanba ma malaynayo in madaxweyne Muuse Biixi oo haatan madaxweyne jamhuuriyadeed oo iskeed madax banaani ugu dhawaaqday in maanta uu ka yeelayo dowladda federaalka Soomaaliya hadallada ay haatan ka soo yeedhay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaaraha marka hadalkan ugu dambeyn wuxuu ku biyashoon doonaa in odayaasha iyo waliba waxgaradka maamulka Somaliland iyo waliba waxgaradka iyo culimaduba inay inta isku tagaan oo gacmaha isqabsadaan ay si toos ah ugu tagaan madaxweyne Muuse Biixi oo laga codsado in doorashada uu ku soo gabagabeeyo inta asaga uu wax ugu qabsoomi karo taasi oo noqonayso in ugu yaraan madaxweyne Muuse Biixi uu ku darsado doorashada 6 bilood iyo wax ka badan ilaa iyo sanad taasi umbaana lagu qaban karaa maanta doorasho ka dhacdo gudaha Somaliland ma loo fasiri karaa hadalkan ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha hadalkii xukuumadda Somaliland ka soo yeedhay ee ahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro hogaamiyaha xisbiga wadani iyo Faysal Cali Waraabe waxay xidhiidh la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena Somaliland waxay soo galiyeen dhalinyaro badan oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya waxayna ku heleen in Somaliland ay rabshado ka ridaan dhaqaale xooggan
horta imi Soomaaliya xiriir ma la yeelan karaan waxaan ognahay dad badan oo siyaasiyiin ah oo Somaliland hore uga soo shaqeeyay inay haatan xilal waaweyn ka hayaan dowladda federaalka Soomaaliya Soomaalina haatan ma jirto meel ay ku kala go'day markii laga reebo sheegashada in Somaliland haatan ay tahay dal madax banaan isla markaana ay ictiraaf raadinayso marka in ay xiriir la sameeyaan oo ay la wada hadlaan oo wada hadal la yeeshaan arintaasi waxaan u maleynayaa inaysan waxba u dhimi karin madax banaanida iyo waliba gooni istaaga maamulka Somaliland marka taasi waxay ku tusaysaa in wali halkaasi uu ka helayo credit madaxweyne Muuse Biixi taasi oo ah in yani hadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay halkaasi ay dhahdo wada hadal ban ina dhaxdhigayna in ay arinta u muuqato ama eedayntii mar horeba uu sheegay madaxweyne Muuse Biixi ahayd mucaaradku waxay la safan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaasi aad moodaa in madaxweynaha uu credit fiican u ka helayo marka arintaasi waxay ayadana tusaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya wali ay ka go'an tahay go'aankii ahaa Soomaalimida isla markaana dunida la heshiisa oo barnaamijkii xukuumadda madaxweynaha iyo waliba mid ra'iisul wasaaraha ayaad moodaa haatan inay rabaan inay dhaadhiciyaan oo maamulka Soomaaliya laftirkiisa maadaama dowladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wada hadaladii ay jawaabsi galeen inay haatan furmi doonaan oo lagu qasbayo mucaarad iyo muxaafidba in ay kasoo qayb galaan taasi oo ayadana ah midii dowladdan ay mar hore ay ballan qaaday marka inay maanta ka hadlaan arinta Somaliland gudaheeda ka dhacdayna waa mid ummadda Somaliland ay aad u soo dhaweynayso ayna arkayaan ummadda Somaliland in dowladdii Soomaaliya wali ay jeceshahay shacbiga Somaliland waxa kalita maanta xukunka iyo waliba ummadda cidlada ku goodominayeen ay tahay mucaaradka iyo waliba maamulka Somaliland madaxweyne Muuse Biixi anoo ma la oran karaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay faragelin ku haysaa Somaliland oo iyadu sheegtay inay tahay jamhuuriyad madax bannaan 30 sanana soo jirtay horta meel ay ku gooday ma garanayno oo dowladda federaalka Soomaaliya wali waxay Somaliland la mid tahay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo waliba Koonfur Galbeed State markii la eego dastuurka Soomaaliya iyo waliba qarannimada iyo waliba Sovietiga dowladda federaalka Soomaaliya ma jirto hal gobol oo Soomaaliya ka tirsan oo ka go'ay waliba dawladdu waxay ku guda jirtaa sidii ay ku soo celin lahayd gobolada NFD iyo waliba gobolka dowladdeegaanka Soomaaliya Soomaaliya galbeed marka arimahaasi ayadoo jirto inta dawlad quwad leh Soomaaliyeed ay ka soo laabanayso umbay ka maqan yihiin Soomaali galbeed iyo waliba NFD marka Somaliland in maanta ay sheegato inay banaanka taagan tahay oo ka gooday Soomaaliya inteeda kaleeto arintaasi dowladda Soomaaliya marna ma aqbalayso waan arinta haatan keentay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha labaduba ay ka tacsiiyaan waxyaabihii ka dhacay gudaha Somaliland markaan u leexano dhinaca Kenya waxa la sheegayaa warar iskhilaafsan oo ka soo baxay arrimaha doorashada dalka Kenya afduubyo loo geystay howlwadeennada doorashooyinka ee dalka Kenya natiijooyin iskhilaafsan iyo sanduuqyo la helay oo ay ku jiraan waraqo feeg ah oo codbixin ah oo dawladda ay qabatay dhinaca kalena waxaa jira cabsi xoogan oo shacabka dalkaasi ay muujinayaan bal xaaladihii ugu dambeeyay dalka Kenya noo soo koob aad tan iyo intii ay soo gabagowday tirinta codadka oo haatan lagu guda jiro sidii loo shaacin lahaa natiijada codadka sida ay u kala heleen madaxweynayaasha ku tartamayo xilka madaxweynaha ugu sareyso dalkan Kenya waxaa soo baxayo in ay haatan la helay foomam iyo sidoo kale waliba codad feega kuwaasi oo ay la imaadeen musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha dalkani Kenya ugu sareeyo marka arintaas waxay ku tusaysaa in guddigii ay haatan bilaabeen tilaabooyin ka dhana warbaahinta iyo waliba goobjoogayaashii u kala qaabilsanaa xubnaha xilka u tartamayo oo ayagu gabihaanba banaanka loo saaray waxaa sidoo kale ayadana la filayaa in haatan lagu dhawaaqi doono madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya ay yeelanayso waa madaxweynaha shanaad ee cusub ee haatan la filayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqay waxaana haatan bilowday in gudoomiyayaal iyo waliba goobjoogayaal caalami ah haatan la afduubtay sida ay soo gudbiyeen guddiga haatan ku howlan tirinta codadka iyo waliba shaacinta natiijada sida loo kala helo
markaan u leexano xagga dowladeegaanka Soomaalida waxaa laga soo sheegayaa in ciidamada liyu booliska jab xoogan ay u geysteen deegaanka canfarta ciidamadoodu dhinaca kalena ciidamo fara badan oo liyu boolisa la afduubay sidoo kalena madaxweynaha dowladeegaanka Soomaalida uu xilalkii ka qaaday saraakiishii ugu sareysay ciidamada liyu booliska dhanka kalena uu magacaabay saraakiil cusub inkastoo shacabku ay ka dayrinayaan in uu madaxweynuhu ku fashilmay xaaladda nabadgelyo ee dowladeegaanka Soomaalida iyo maareynta xaaladaha ku hareeraysan bal maxaa ugu dambeeyay dhinaca jigjiga iyo dowladeegaanka Soomaalida iyo gobolka City iyo canfartii carrada soo weerartay aad markaad fiiriso qaabka haatan loo wajahay nidaamka difaacidda dowladdeegaanka Soomaalida iyo waliba dowladdeegaanadan kala duwan ee dariska la ah deegaanka Soomaalida oo iyagu weeraro joogto ah ku soo hayo ummadda Soomaaliyeed iyo waliba ururka argagixisada ee soo galay gudaha dowladdeegaanka Soomaalida iyo sidii ciidamadu u feejignayn ilaa iyo 200 oo kilomitir ururka argagixisada ay gudaha u soo galeen oo haatan la haysto 3 degmo oo ka tirsan galbeedka gobolka City haystaan dabley hubaysan oo ka soo jeedo deegaanka canfarta markaad howlahaasi oo dhan fiiriso waxaad moodaa in aysan jirinba hanaan amni ama hanaan mas'uuliyadeed oo dadka dowladdeegaanka Soomaalida lagu difaaciyo taasi oo ay ciidamadu qaadeen iyo waliba madaxweynaha deegaanka Soomaalida arintaasi oo gabahanba ay ku fashilmeen waxa sidoo kale ay ku tusaysaa habacsanaanta amni ee ka jirto gudaha dowladdeegaanka Soomaalida kale waxaad sheegtay in isku shaandhayn lagu sameeyay madaxda ugu sareyso ciidamada liyu booliska taasi waxba kama bedelayso laba nin oo ilmaadeer ayaa la isku bedelay aqoon laguma xulanin karti laguma xulanin sidoo kale waaye aragnimo ay u leeyihiin ama khibrad ay u leeyihiin ciidanka dowladdeegaanka Soomaalida iyo waliba difaacidda deegaankeena marka la fiiriyo hawsha haatan cagjar uu ku jiro waa midii shacbiga dowladdeegaanka Soomaalida ay haatan isku tashan lahaayeen isla markaana ay mudaharaadyo iyo waliba in ay hubka intay qaataan iska dhiciyaan cagjar laftirkiisa ayaa dhibaatooyinka mas'uulka isla markaana abuurayo waana arinta haatan loo baahan yahay shacbigu inay indhaha kala furaan sifo ay u badbaadiyaan nafahooda inta ka dhiman waxaanu wararkan ka helayna jigjiga waxay sheegayaan in ciidamadii ku dhaawacmay xuduudda dowladdeegaanka Soomaalida dagaalkii lagula jiray al-shabaab iyo xuduudda deegaanka canfarta ay la daraysan yihiin xaalad caafimaad darro dhinaca kalena faamiladooda lagu wargeliyay in iyagu daaweystaan halka qaar kale la sheegayaan inay isku ureen bal arrimahaasi maxaa war nooga haysaa arrimahaasi inay dhacayaan waa mid dadka dhanba ay haatan niyadda ku hayaan oo waxaan ognahay inaysan jirin mas'uuliyad la iska saarayo dadkii hore ugu dhamaaday dagaaladii dhacayay dowladdeegaanka ka jiray hadday noqoto kuwii lala gelayay ururada argashabaab iyo ururada sida gaarka maalin walba weerarada joogtada ugu soo qaada gudaha dowladdeegaanka Soomaalida iyo waliba ururkii Ownalif gabihaanba dadkii dhibaatooyinkaasi ku soo dhaamay oo ku waxyeeloobay ma jirto ilaa haatan wax loo qabtay kuwana kuwii umbay daba joogaan mana jirto meel haatan loo cabanayo oo ka sareyso inay Ilaahay gacmaha u taagtaan dadkaasi haddaba dhagaystayaal xaaladihii ugu dambeeyay ee dowladdeegaanka Soomaalida dhinaca Hargeysa iyo Kenyaba waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe ee xiriirka ah dhagaystayaal magaalada Hargeysa waxaa laga soo sheegayaa xaalad nololeed oo aad u qalafsan iyo cabsi weyn oo soo wajahday shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda dhanka kalena waxaa lagu soo warbixinayaa in xukuumadda madaxweyne Biixi ay bilowday ugaarsiga ka dhanka mucaaradka iyo dhalinyaradii maalmihii dhaweeytay ku dhigayay mudaharaadka goobaha kala disan ee gudaha Somaliland dhanka kalena asxaabta mucaaradka iyo shakhsiyaadka ehelka la musharaxiinta madaxweynayaasha Somaliland ayaa la sheegayaa in ay xaaladooda amni darro ay aad u sii badanayso dhanka kalena Somaliland guud ahaan iyo magaalada Hargeysa laga qaxayo wararkaasi wixii ka soo kordhana waxaan idinku soo gudbin doonaa hadduu eebba yiraahdo wararkeena dambe xaaladda Kenya iyo doorashada iyo meesha la kala marayna waxaad ku maqli doontaan wararkeena hadduu eebba yiraahdo sidoo kale deegaanka Soomaalida iyo wixii ka soo cusbanaado taniyo intaan ku kulmayna barnaamij kan la midana waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillah dhamaantiin waad salaam